السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنو ماتا waxaan ka yaabay waa cajiib. Horta Soomaalidu waxay tiraahdaa tiisa daryeela tu kale ku daree. Maanta laba dal oo midba tiisiisii gudihiisii ay ka foolxun tahay oo u baahan gudihiisii in la hagaajiyo oo la toosiyo ayaa maanta dal dhan oo iyo dad dhan oo iskeenay oo maaragtay meel iskeeyay oo horumaray doonaya inay horumarkooga xaasidaan. warshow ilaahay xaasidku maaragtay intaan noosha u baday waxaan ka yaabay laascaanood madaxweynaha Soomaaliya iyo waftiga Djibouti laga soo diray Soomaaliland isku tagay anu horta waxaan nii sheegayaa mid ani magacayga Aare Salebaan Cawleed Baleera mid ay noogeysiin nin ciiso oo reer Djibouti ah anu maanta waxaan la jiraa oo ilaahay la ka baryayaa inay Soomaaliland guul gaadho maadaama anu Soomaaliland oo dal kale intay tagtay qasaysa ma noo arkin Soomaaliland dal kale horumarkiisa ay ka soo horjeedo amba horumarkayga ay ka soo horjeedo oo ay ka xaasidsan tahay oo ay leedahay shacabka dalka ayaa lagu hayaa gumaysiyo waa soo caawinayo waa soo xoreena maanta labadan dal ay Soomaaliland iskugu tagaan waxay niga sheego anu meesha Djibouti aan ka yimid waa dadkayga baa ku nool madaxweynuhu waa gumayste waa dictator waa nin ummadiisii doonaya inuu gumaystay qabyaalad dhex dhigay doorashadii mar lixaad Djibouti soo dhowday dadkiina qabiil isu dhex dhigay si ay dadku u midoobin oo isaga taliskiisa iskaga ridin ilaahayna waxaan ka baryaa inuu dadka qulubta reer Djibouti oo qabiil kasta ay isku keenay si taliska ugu rido taa waa mid oo waa Djibouti midna waa xamaro nin xasan sheekh la yiraahdo Ismaaciil Cumar baa xukuma waa nin hawiya ani hawiyu dadka wax igu meeshay waa dad walaalahay mise laakiin hawiyaha dad xun iyo dad fiican